waa su'aalihii jawaabo like noo saara noona sheer gareey la wadaag asxaabtiina haddaad nagu cusubtahay subscribe noo saar بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sida qoraalka idinka muuqda su'aasha ugu horeysay dhowr su'aaloodaan hayaa su'aasha ugu horeysay waxa weeye gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday taleefanka iga jabay horena ugu soo hadlay taleefanka jabay waa maxay ahayd axaadiis nafsi li'aano eesh taleefanka sheega kali oo noogu qaalisan waay oo anaga aan jecelnahay aan ka maarmin oo in badan aan ka welwelno marka hadday marba riyada soo noqnoqoto in badan janankeyga hor waa ka soo hadlay hadday riyada marba noqoto noocay doonta ahaata hadday marba soo noqnoqoto inta badan waa axaadiis nafsi laakiin hataa haddaan idhaahno waa riyo يعني لعلا كسو قاد واريو تليفونكو كاجاباي waa mashaakilaya yar qaasatan familka mise dadka ku dhadhawaay oo in badan aad taleefanka kala sheekaysan jirtay wallahu yaclam su'aal kale waxaa jirta shaqsiyan ii soo weydiiyay gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday hooyaday oo tusbax isiinayso tusbax lagu tasbiixsado adoo tusbax lagu hadiideyna aad u wanaagsan tahay waxyaabo badan ay tilmaamaysaa haddii aan soo koobo waxay tilmaamaysaa adduunku qurux badnaanay waxay tilmaamaysaa toosnaan hidaayo siraatal mustaqiim waxay tilmaamaysaa barako gurigaagii awlaadaada wallahu yaclam gabadha dhowr masaj ii soo qortay masaj waxaa ku qornaa walaashay oo idilaysaan ku riyooday micnay leedahay yani iyadoo garaacayso kale mid kale waxay tiri bahal oo dadcun ah waxaan ku riyooday yani mas dadcun ah oo cad midibkiisa gabar walaashay oo jarjarayso idilaysa yani waxyaabo badan ay ka sheekeynaysa horta hadday garaacitaan tahay yani qof walaasha ku dilayso yani ku dharbaaxayso mise waxyaabaha kale taa waxay noqonaysaa isfahan badan dhexdeena yaala mise kala fogaasho labada maaday u dhaxaynaysaa inta badan waxay dhahaan waa baarinimo isfahan yani inaad walaasha baari u tahay laakiin riyada kale oo ah hadday labada haray isku tahay in kala ma aqaano riyada kale oo ah sida qoraalka idinka muuqda walaashay oo maxay jarjarayso naag mascad afwan oo guriga soo galay oo walaashay dilay waxyaabaha taa waxay noqon kartaa mashaakilo mise waxay noqon kartaa shayaadiin dhexdiina ka shaqeynaya yani in isku keendar yani riyada mina shaydaanay ka noqon kartaa haddaan idhaahno waa riyo waayo riyo bay noqon kartaa taa waxay noqon kartaa qof dumara inuu isku keendarayo waayo maskacad badanaa waa qof dumar ah inuu adiga walaasha isku keendarayo laga yaabaa wallahu yaclam kulli qof walba xaaladuu ku sugan yahay ayay riyada u fasiraysaa haddii yani mashaakil adiga walaasha jiri mise dad isku keendarayo ay jirtay laga yaabaa inay midaa ka hadlayso haddii kale waxay noqon kartaa min ashayaadiin oo adi walaashaada balaayo yani dhexdiina dhigaya wallahu yaclam gabar kale waxay tiri wiil xiriir aan leenahay ayaan ku riyoodaa mar walba asigoo aniga soo isguursanay anigoo uur u leh mar anigoo ilmo u haay kaale ilmaha soo qab waxyaabahaas oo kale waxaan u maleynayaa inaan riyada u soo fasiray laakiin ma xasuusto haddaan muuqaalo hor kusoo jawaabay in kale ma xasuusto laakiin halkaan ugu fasiray haddeen muuqaalo hor aan kasoo jawaabin badanaaba hore noogu soo hadlay dadka xiriirka leh riyooyinkooda waa axaadiisa nafsi khasuusan hadday soo noqnoqoto haddee hal mar riyo ay arkaan oo kale iska caadi laakiin hadday riyadaa soo noqnoqoto waa axaadiis nafsi waayo waa wax iyaga mar walba ku riyoonaya inay guri yeeshaan inay awlaad isku dhalaan inay meel wada degaan midaasay noqonaysaa haddii laakiin riyada noqoto hal mar weligeedaba aad aragtida hal mar wiilka xiriirka leediin aad riyo ku aragtid oo kale inta badan ba mufasiriinta riyooyinka waxay dhahaan taa waa riyo rumoobaysa insha allah inaad guursan doontaan ayay tilmaamaysaa leeyiin wallahu yaclam gabar kale waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo wax i ceersanayo kabacdi qur'aan iyo xasbi allah wa nicmal wakiil dhahayo adkaar yani qur'aan wax badan iskaga akhrinayo in badan ayaan ka soo hadlay dadkii janankii hore ila joogay kuley way fahmi karaan adigoo wax ku ceersanayo waa mashaakilo adoo qur'aanka akhrinayo waa mashaakiligaas aad ka guuleysanaysid hadday jireen shayaadiin mise mashaakilo bini aadan kuu geysanaya waa guul waa najaad waa badbaado wallahu yaclam halkaasaan kusoo koobaya